xaaladda adag ee keenta abaarta saamaysay dadka duunyada iyo duurjoogta ayaa sare u sii kacaysa waxaana indhahaagu qabanayaan goobaha tirada yar ee ceelasha biyuhu ku sii hadheen sida ceelal biyoodyada waxaa weerar ku soo qaada duurjoogta dhulka baadiyaha ku nool waxaanu dagaal ku dhex maraa halkaasi dadka iyo duurjoogta kuwaasoo isku dila biyaha ceelasha ku sii hadhay maadaama labada dhinacba haraad wado bal iminka aynu jaleecno xogo ku saabsan xaaladda ka taagan ceel biyoodyo ku yaala magaalada ceeg iyo ceel xume ee koonfurta magaalada Burco waxaana faahfaahin naga siiyay aqoon-yahan Cabdilaahi oo Saciid iyo Suxufi Mahad Faarax oo waqtigaasi hawlo shaqo u joogay magaalada ceeg iyo ceel xume oo ay ku yaalaan ceelal gacmeedyo ay ku kulmaan deegaano kala duwan waqtiyada biyo la'aantu jirto halkan waxa ka muuqda waxa weeyaan doofaarradii ceeg joogay oo aad u diifaysan oo aanu meel dhulka biyo ugu shubnay taasoo aanu ka codsanay waliba aanu biyaha u iibinay oon ka beed yani haraadka diifta intuba ay ka muuqato marka ilaahay aanu barino ilaahay baynu baryaynaa in ilaahay soo waraabiyo xawayaankiisa doofaartan magaalada ku nool iyo dadweynaha magaaladan dagaal ayaa dhex maray markaa ku saabsan waxay isku dileen biyo marka arrimahan waxa sabay abaaraha dalka ka jira ee baaxadda leh marka bulshada ku dhaqan magaalada ceeg waxa uu soo jeedin aniga iyo Cabdilaahi iyo Sultaankuba in ay ilaahay dirtii u waraabiyaan xawayaanka ku sugan deegaanka marka xoolaha waraabsanayaan Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco.